Ha fiirinin murugta ku haysa weyninkeeda ee waxaad fiirisaa rabbiga aad tuugaysa weyninkiisa fiiri. Allah ayaa wax annahu huwa adxaka wa abkaa wa annahu huwa amaata wa ilaahi waa midka dadka ka qosliyo kana ducada labaad haddii aan u gudubna ayaa waxay tahay Mucaad ibn Jabal radiyallahu anhu maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam asagoo murgeysan oo aad u murgeysan ayuu arkay. Markaas ayuu wuxuu ku yiri yaa Mucaad maxaad la kurbeysan tahay markaas ayuu Mucaad wuxuu yiri yaa rasuulallah waxaan la kurbeysanahay deen ayaa liigu leeyahay, deenta ayaa sidaan ii kurbeysay. Mucaadna 2 bari ayuu guri ugu jiray deentaas darteeda. Fiiri saxaabada markii ay deen qaataan way la kurboon jireen oo way ka murgoon jireen deentaas bixinteeda, guri ayay u gali jireen. Dadka maanta jirana deen inay qaataan ee haddana aysan ka kurboonaynin bixiskeeda iyo waxeedana ay isku mushkileynaynin. Mar ay been sheegaan iyo mar ay qofkii balamiyaan balan been ay u dhigaan. Balanta beenta ahna waxay ka mid tahay calaamadaha munaafaqa. Saxaabadina waxay la kurboon jireen deentii ay qaateen bixinteeda ayay la kurboon jireen ee guri u gali jireen. Mucaad ibn Jabalna wuxuu la kurbeysan yahay deentaas. Markaas ayuu wuxuu ku yiri rasuul sallallahu alayhi wasallam waxaa la kurbeysanayaa rasuulallah deentaas ayaan la kurbeysanahay. Kadib rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri yaa Mucaad alaa ucallimuka ducaan tad'u bihi لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. رسولك صلى الله عليه وسلم وحير معاذو مكوشيغا دعو هديئات كدعي ستيد وإلهي كاقودايو دينتا سيتي حتى دينتا وين كذا هدي لأكتهي بورت ليراد أحد حتى هدي أي لأكتهي دينتا لغوغولي هاي وإلهي كاقودايو نبي وحكير معاذو وحا حقيقة haddii aad ku duceysatid ducadaasaytii ilaahay inuu deentaas kaa gudaayo taas ayaa xaqiiqo ah ayuu ku yiri. Qul yaa Mucaad waxaad tiraahdaa Allahumma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa wa tanzicu almulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir rahmanu ad-dunya wal aakhirah ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. سبحان الله. رسولك صلى الله عليه وسلم وحوت الماما يا دعاء عجيب نبي وحكير معاذ وحتر هذا اللهم أله يو مالك الملك وحتهي بقرك ملكك تؤتي الملك من تشاء ملكيغا waxaad siisaa cida aad doontid wa tanzi'ul mulka mimman tashaa cida doontana waad u diidaa waayo adduunkana u jeedid ilaahay ciduu doona ayuu qani ka dhigaa oo farta uu ka saaraa adduunkan ciduu doonana wuu u diidaa waayo asagaa boqorka asagaa mulkigan iskale oo maamulo. wa tu'izzu man tashaa allow cidaad doontana cize iyo sharaf ayaad u yeeshaa wa tudhillu man tashaa cidaad doontidna waad dulaysaa oo hoos ayaa u dhigtaa waayo ilaahay ciduu doono sharaf iyo karaamo ayuu siiyaa oo wuu cizeeyaa ciduu doonana wuu duleeyaa oo wuu lumiyaa hoos ayuu u dhigaa. biyadika alkhayr rabbiyow gacantaada ayuu ku jiraa khayrka oo dhan innaka adiga calaa kulli shay'in qadiir shay walba ayaad awoodaa rabbiyo wax walba waad awoodaa waayo ilaahay awoodiisa ilbiriqsi gudaheeda ayuu wax walba ku sameyn karaa. deen lagugu leeyahay wuu kaa gudi karaa intaasoo kumanaan deen lagu leeyahay ilbiriqsi gudaheeda ayuu Allah gudi karaa. mid taajir faqiir ayuu ka dhigi karaa hoos ayuu keeni karaa mid faqiir ahna kor ayuu u qaadi karaa taajir ayuu ka dhigi karaa mid xanuunsan ayuu shaafin karaa mid caafimaad qaba ayuu xanuun ku ridi karaa alle mid noolna wuu dili karaa oo nafta ayuu ka qaadi karaa midna wuu nooleyn karaayo wuu dhashanayaa oo adduunka ayuu kusoo biirayaa waayo ilaahay waa midka dadka ka qosliyo kana oysiiyo wa annahu huwa adxaka wa abkaa wa annahu huwa amaata wa axyaa. qof noolna wuu dilaa qofna wuu soo noolsiiyaa oo adduunka ayuu kusoo biirayaa
marka ilaahay wax walba ayuu awoodaa. marka ilaahay awoodiisa wax walba ayay ka sareysaa. waxaadna ogaataa wax walba adig kaa weyn oo ka awood badan inuu Allah kasii awood badan yahay oo ka weyn yahay. ha fiirinin murugta ku haysa weyninkeeda ee waxaad fiirisaa rabbiga aad tuugaysa weyninkiisa fiiri. Allah ayaa wax walba qadaro. kadib Mucaad wuxuu ku dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii aan sii wadno ducada رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما waxaa tahay rabbiyow midka u naxariista adoomadiisa adduun iyo aakhiraba. naxariis u naxariista ayaa tahay. tucdiihumaa man tashaa naxariistaas rabbiyow cidaad doontid ayaa siisaa. watamnacu man tashaa cidaad doontidna u diidaa. allow naxariistaada hanaga qadinin oo hanoo diidin yaa rabbi. ilaahay naxariistiisa ciduu doona ayuu siiyaa oo u naxariistaa, ciduu doonana wuu u diidaa. ilaahay hanugu daro kuwa u naxariistay. kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhahay Mucaadow waxaad tiraahdaa irxamnii allow ii naxariiso raxmatan raxmad tuqniinii biha iga kaafinayso can raxmatin man siwaak. raxmadaasoo iga kaafinaysa rabbiyow cid adig kaa soo hartay raxmadooda. waayo naxariistuu rabbi kuwa naxariistay iyo naxariistuu makhluuq ku naxariistay isku meel ma galaan. naxariista Allah ayaa wax walba ka weyn. waxa adduunka aan ku joognana waa naxariista Alle. aakhirana waxaa rajaynaynaa naxariista Alle. adoonka kuu naxariisanayo ee raba inuu kuu naxariisto qalbigiisa waxaa naxariistaas kuu geliya Allah. ka waran rabbigii naxariista keenay ee adoonkaas qalbigiisa naxariista kuu geliyay hadduu kuu naxariisto oo naxariistiisa ku siiyo taasi wax loo dhigo malahan. waxa aan rajaynayna dhammaanteenana waa raxmadi Alle. ilaahay hanoo wada naxariisto. waxaa xaqiiqo ah ducadan uu sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam Mucaad haddii aad ku duceysatid weliba si yaqiin aad Allah u barisid aad ugu duceysatid ilaahay deenta lagugu leeyahay inuu kaa gudaayo. ilaahay inuu ku kaafinayo fi dunya wal aakhirah. aadankana uu kaa kaafin doona Allah. ha ka walwalin markaad duceysanaysid Allah sidoo iiga kaafinaya soo iiga gudaya deentan. waayo ilaahay si walba ayuu karaa oo kaa gudi karaa. adoon ayuu qalbigiisa naxariis inuu ku soo galiyo kaa gudi karo. ilaahay wado walba ayaa u fudud oo adiga wax kuugu qaban karo. muhiimadda laga doonayo ayaa waxay tahay adiga yaqiin ina ilaahay yaqiinisid oo kaliya. markaad bariyaysid yaqiina ina ilaahay u barisid. qalbi qaafila ina ilaahay ku toogtid looma baahno. qalbigaaga soo xaadiri markaa ilaahay bariyaysid. ilaahayna wuxuu wax kaaga gudaa ama uu wax kuu siiyaa si maskaxdaada iyo aqligaaga uusan qaadanaynin marnaba ayuu ilaahay kuu siin karaa mararka qaar. marka yaqiin oo kaliya imow. rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu barayaa duca cajiib ee Mucaad. balse Mucaad oo kaliya ma barayo nabiga sallallahu alayhi wasallam ee wuxuu barayaa qof walba anaga naga mid ah oo deen lagu leeyahay. ducada oo barayna waa duca cajiib ah. waa duca uu rabbi marka hore uu ku amaanayo kadibna uu murugtiisa u bandhiganayo. markastoo ilaahay aad bariyaysid ha ka horgeynin mushkiladaada. wuu ogyahay ilaahay xaaladahaada oo dhan. naftaada ayuu kaa ogyahay. balse waxaad ka hormarisaa duco walba aad duceysanaysid ilaahay ha ka hormarinin mushkiladaada ha ula hortagin. marka ugu horeyso Allah wax walba uu ogyahay oo adiga aad ku sugan tahay xaaladahaada uu ogyahay. naftaada ayuu kaa ogyahay. balse Allah awoodiisa ku amaan marka horeeto kadibna u mahad celi kadibna saliga nabiga ku qatin. markaas ducadaada iyo mushkiladaada Allah u sheego. waxaa xaqiiq ah Allah inuu ka aqbalayo ducadaas waa hadii aad yaqiin aad ku weydiisatid Allah. ilaahayna wuu ka xishoodaa adoonkiisa oo gacanta u taagay ayadoo eber inuu soo celiyo. daradeed ilaahay bari oo ku bari ducadaanayti adigoo yaqiininaya Allah inuu ka ajiibayo. dhinacan kalena aad asbaabteeda aad la iimaanayso oo aad dadaalaysid. taasina waa ducada labaad. haddii aan soo dulmaro ducada idinku soo celiyana waxay tahay Allahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tashaa wa tanzi'u al mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. تاسنا ودعاء لوات ورسولك براي معاذ رضي الله عنه. هدي أدكو دعيسة الدعاء ذاسنا إلهي وكا أقبلايا ولي بس يقين هدي أدكو دعيسة الله وكا أقبلايا دين تلقو قليا هنا الله وكا قدايا ظروفك هايستنا الله وكا قادايا إن شاء الله. الله الله نسامح الله الله نو دم داف الله الله نسامح الله الله نو دم داف.